kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooyo dheer media waa habeenimo ay jumca soo galayso taariikhduna waa 11 bisha saddexaad 2021 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena habeenimana waxaa ka mid ah ciidamada cirka ee dalka Mareykanka oo la sheegay in ay duqeymo ka fulinayaan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya midowga Yurub oo iyaguna ku dhawaaqay inay cunaqabatayn ku soo rogayaan dalka Itoobiya dhinaca kalena dawladda Itoobiya waxa ay sii deysay gabadh lagu magacaabo Khayriya Ibrahim oo horay u ahayd afhayeenka golaha federalishinka ee dalka Itoobiya kana soo jeeday gobolka Tigray dawladda Mareykankana hanjabaad aad u xooggan ayay iska soo daba saaraysaa taasi oo ay ku sheegayso inay tallaabo uga qaadayso wadamada Itoobiya iyo Eritrea dhinaca kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xubno tiro badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku soo qabteen dagaal xooggan oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab magaalada Muqdisho waxa uu kulan ku dhexmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo safiirka dalka Mareykanka u fadhiya magaalada Muqdisho Dolla Yamamoto iyo waxa ay ka wada hadleen iyo talaalka cudurka COVID-19 oo loo waday Soomaaliya ayaa la sheegayaa in laga dajiyay Kenya iyo sababta faahfaahin dheeraad oo ku saabsan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeenimo ee channelka Dooyo Dheer Media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa kadib markii la sheegay in dawladda dalka Mareykanka ay tallaabo ka qaadayso gobolkaasi ciidamada Mareykanka ee cirkana la sheegay in qaar ka mid ah diyaaradahooda dagaalka ay u soo dhaweeyeen gobolka Tigray ee dalkaasi ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa waxa la sheegay in si weyn looga cabsi qabo in duqeyn ay ka fuliyaan gobolka Tigray iyaga oo targetanaya ciidamada Eritrea iyo kuwa Axmarada ee ku sugan gobolkaasi Mareykanka ayaa waxa la sheegay in qaar ka mid ah diyaaradihiisa droniska ay keeneen dalka Suudaan iyaga oo ka soo dajiyay meel aan aad uga fogeyn sida la sheegayo xuduudaha ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan Mareykanka ayaa waxa uu maanta ku soo daabulay diyaaradihiisa dagaalka dalka Suudaan ee dariska la Itoobiya sidoo kalena maraakiibta dagaalka ee dalka Mareykanka ayaa la sheegay inay taagan yihiin xeebaha dalka Suudaan iyo badda cas Eritrea ayaa la sheegay inay ka dhaga adeegtay baaqyadii caalamka ka imanayay ee ahaa in ciidamadeedu ay ka baxaan gobolka Tigray kadib markii lagu eedeeyay in ciidamadeedu ay arrimo bili-aadminimada ka baxsan ka geysteen gobolka Tigray ilaa xaqiiqo ah oo aynu ka soo xiganayno dhinaca dalka Suudaan ayaa waxa ay xaqiijinayaan in diyaaradaha droniska ee Mareykanka ay soo gaadheen dalka Suudaan isla markaasina meel aad ugu dhow xuduudaha Itoobiya iyo Suudaan ay ka dageen halkaasi oo laga cabsi qabo in duqeymo ay ka bilaabaan iyaga oo u duulaya dhinaca gobolka Tigray maanta ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa waxa uu sheegay inay ku qasban yihiin in tallaabo ay ka qaadaan ciidamada Eritrea iyo kuwa gaarka ee qoomiyadda Axmarada iyo waliba kuwa militariga Itoobiya ee ku sugan gobolka Tigray isaga oo sheegay in ciidamadaasi arrimo ka dhana bili-aadminimada ay ka geysteen gobolka Tigray shir saxaafadeed uu qabtay ayaa waxa uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku sheegay in cidna hadda aan wax laga weydiinaynin ee arrintaasi ay soo dhamaatay isla markaasina ay harsan tahay oo kaliya in tallaabada uu Mareykanku qorsheeyay laga qaado ciidamada dadka ku dhibaateynaya gobolka Tigray cabsi badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto gobolka Tigray oo ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea kuwa Axmarada iyo ciidamada militariga ee Itoobiya iyada oo ay suurtagal tahay in goobo cayiman ay duqeymo ka geystaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee lagu soo waramayo inay soo gaadheen xuduudaha Itoobiya iyo Suudaan dhanka kalena midowga Yurub ayaa waxa ay sheegeen in cunaqabatay rasmi ay ku soo rogayaan dalka Itoobiya midowga Yurub oo arrimaha Itoobiya iyo gargaarka Tigray ka hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in cunaqabatayn ay ku soo rogayaan xubnaha hogaaminta iyo maamulka guud ee Itoobiya kuwooda ka qayb qaatay xadgudubyadii xuquuqda aadamiga ka dhanka ahaa ee ka dhacay gobolka Tigray Commissioner Jens Leonard oo midowga Yurub u qaabilsan maareynta dhibaatooyinka ayaa waxa
uu ku goodiyey in cunaqabataynta lagu soo rogi karo kuwa xadgudubyadaasi ku lugta lahaa islamarkaasina midowda yurub uu qaatay go'aan ah in dadka xadgudubyadaasi ka dambeeyey tallaabo laga qaado. midowda yurub ayaa horay cadaadisyo kala duwan u saaray dalka Itoobiya, waxa ayna hakiyeen 100 milyan oo Itoobiya ay heli jirtay. haddase waxa ay u muuqdaan kuwa intaasi aan ku istaagi doonin ee tallaabooyin kala qaadi doona, iyaga oo sheegay in cunaqabatayn rasmi ah ay ku soo rogi doonaan dalkaasi. dhanka kalena dowladda Itoobiya ayaa waxa ay jeelka ka sii daysay haweeney lagu magacaabo Khayriya Ibrahim oo ka soo jeeda gobolka Tigreega islamarkaasina horay u ahayd afhayeenka golaha federaalishinka dalka Itoobiya, taasi oo lagu eedeeyey inay ka mid ahayd guddiga fulinta ee TPLF. markii hore ayay gabadhani waxa ay ka talowday xadka, waxa ayna isu dhiibtay dowladda Eritrea, waxaana la sheegay in Eritrea ay dib ugu soo gacan gelisay dowladda Itoobiya. maanta ayaa lagu soo waramayaa in dowladdu ay damiin ku sii daysay gabadhani lagu magacaabo Khayriya Ibrahim oo ah gabadh muslima islamarkaasina ka soo jeeda gobolka Tigreey. Khayriya Ibrahim ayaa markii Abiy Ahmed uu doonayay inuu weerarka ku qaado gobolka Tigreega ayaa waxa ay iska casishay xilka afhayeenka golaha federaalishinka ee dalka Itoobiya, iyada oo markaasi dhaleecooyin aad u xoogan u jeedisay Abiy Ahmed oo ay ku sheegtay inuu yahay taatar tabar raadinaya islamarkaasina anigu waxba kama dhisi karo dowlad soo korayso oo dictator ayay gabadhu sheegtay xilliga ay iska casilaysay xilkaasi. si kastaba haatee Khayriya Ibrahim ayaa waxaa la sheegay in maanta damiin lagaga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa, waxa ayna dadka qaar sheegayaan sii deynteeda inay sababtay kadib cadaadisyo aad u tiro badan oo dowladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed uga imanaya dhinaca beesha caalamka. waxaa kale oo uu Abiy Ahmed ogolaaday in baaritaan lagu sameeyo waxa ka jira gobolka Tigreey. dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay laysay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwa kalena ay soo qabatay. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgalla ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxa uu si gaara uga dhacay deegaanada kala ah Maguurta, Gumurow, Kaxorow, Doonka Weyne, Doonyeerow, Cadaleye, Lafagaale iyo Cumar Dheere oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee koonfurta dalka. saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in bartilmaameedka uu ahaa goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa madaxa oo ay ku raad joogeen. sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay tilmaameen in howlgalkaasi ay ku soo qabteen ilaa 18 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaa dhanka aasida qaraxyada iyo minooyinka. muhiimadda howlgalka waa in baaritaan lagu sameeyo tuulooyinka ay ku dhumaalaysanayaan argagixisada si loo baabi'iyo minooyinka ay geliyaan wadada isku xidha Tixsiile iyo Afgooye, ayaa waxaa yidhi Cabdalla Mustafa oo ah taliyaha ciidankan howlgalka sameeyey hogaaminayay. ugu dambeyn saraakiisha ka warbixiyay howlgalka ayaa waxa ay xuseen inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. inta badan ururka Al-Shabaab ayaa weli waxa ay ku xoogan yihiin gobolada Shabeellooyinka iyo guud ahaanba koonfurta dalka. dhanka kalena kulan ayaa magaalada Muqdisho la sheegaya inuu ku dhex maray madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland iyo safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu qaabilay safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Dolan Yamamoto, kaasi oo booqasho ku tagay hoygiisa. labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda dalka, gaar ahaan arrinta muranka xoogani uu ka taagan yahay ee doorashooyinka dalka ee sanadkani 2021. sidoo kale labada dhinac ayaa waxa ay isla soo hadal qaadeen sidii beesha caalamka ay qayb uga qaadan lahayd dadaalada socda siba qabsoomida doorashooyin xor iyo xalaal oo dalka ka qabsooma. madaxweynaha iyo safiirka ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii bulshada caalamku ay qayb uga qaadan lahayd sidii doorasho xor iyo xalaal oo loo dhan yahay ay dalka uga dhici lahayd, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Axmed Madoobe oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu u yimid ka qaybgalka shirka wada tashiga ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee la raba inuu ka dhaco teedhada Afasoonia ee magaalada Muqdisho. si kastaba haatee madaxweynaha Jubbaland ayaa kulamo waxa uu ka wadaa magaalada caasimadda ee Muqdisho, isaga oo horay ula kulmay wakiilka midowda Yurub ee Soomaaliya iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka.
dhanka kalena tallaalka cudurka covid-19 oo loo waday soomaaliya ayaa la sheegay in laga dejiyey dalka kenya tallaalka cudurka covid-19 ee loogu deeqay dalka soomaaliya oo ka mid ahayd dalalka ka faa'iidaystay mashruuca covax oo ay hirgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee huwa oo kasoo shaqaynaysa isbahaysiyo dhowra ayaa waxaa laga dejiyey dalka kenya xogta aynu helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in tallaalkaasi oo nooca loo yaqaano covaxin oo lagu sameeyey dalka hindiya laga dejiyey magaalada nairobi ee dalka kenya kaasi oo 3 maaja laga soo qaaday dalka hindiya si loo keeno soomaaliya si hayaha wasiirka caafimaadka soomaaliya oo idaacadda VOA ay wax ka weydiisay arrintaasi ayaa waxa uu sheegay in tallaalkaasi loo geeyey dalka kenya arrimo dhanka farsamada ama socdaalka ah maadaama oo ay ku dooday in ay maamulaan hay-adda UNICEF iyo huwa ee qaramada midoobay oo xarumahooda waaweyn ay ku yaalaan caasimada dalka kenya ee nairobi sida uu sheegay tallaalka ayaa waxa uu yimid oo uu transit ku yahay dalka kenya waxaa la filayaa in maalinimada khamiista ilaa iyo sabtida uu soo gaadho dalka waxaana ka shaqaynaya soo dejinta tallaalka UNICEF iyo huwa oo waxa uu ka yimid dalka hindiya waxa uuna hakad ku yahay dalka kenya logistiga dhinacaasi ayay ka imanaysaa oo hay-adaha waxa ay xafiisyadooda waaweyn ku leeyihiin dalka kenya ayaa waxaa yidhi foosiya abikar nuur oo ah wasiirka caafimaadka ee soomaaliya wasiiradda oo wax laga weydiiyey sababta ka liftay in tallaalka uu ku hakado kenya iyada oo xisadii ay kala dhaxayso ayaa waxa ay ku jawaabtay caafimaadka iyo siyaasadda lug iskuma laha arrimo farsamo ayuu halkaasi uga degay ayay sheegtay dhanka kalena dadka ka soo jeeda qoomiyadaha axmaarada iyo weliba dadka ka soo jeeda dalka Eritrea ayaa waxa ay barnaamijyo xoogan ku dhigahayaan wadanka Mareykanka iyo sidoo kale wadamada Yurub dadkani ayaa waxa la sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabada uu doonaya Mareykanku inuu ka qaado gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya isaga oo Mareykanku diidan in ay sii socdaan xasuuqyo uu sheegay inay ka soconayaan gobolkaasi oo ay geysanayaan ciidamada wadanka Eritrea ee militariga iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska ee ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada iyo Eritreanka ku nool dalalka midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxa ay wadaan dibadbaxyo ay ku diidan yihiin baaqyada Mareykanka iyo midowga Yurub ee ah in ciidamada Eritrea iyo maleeshiyaadka axmaaradu ay ka baxaan gobolka Tigray si kastaba dadkani oo barxadaha iyo wadooyinka isugu soo baxay ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan ma ogolin hanjabadaha ka soo baxaya wadamada Mareykanka iyo Yurub isla markaasina codsanaya in dawladda Itoobiya loo daayo maamulida wadankeeda iyo cidii iyadu ay u kaalmaysanayso wax kasta oo u baahan in wax lagala qabto sida ay dadka ku dhawaaqayaan dhanka Soomaaliyana dawladda dalka Turkiga ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo ay kala hadashay arrimo la xiriira ciidamada sida gaarka u tababaran ee Turkiga uu soo tababaray ee gorgor oo la sheegay in madaxweynaha uu adeegsanayo arrimo siyaasadeed magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan soo gaaray cutub ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaano gorgor waana cutubka 15aad oo tababar ku soo qaatay gudaha wadanka Turkiga warar aynu helay ayaa sheegaya in dawladda dalka Turkiga ay kala hadashay madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisa u dhamaaday in aan siyaasad loo adeegsanin ciidamada gorgor iyo haram cad sida ay horay u sameeyeen Mareykanka oo diiday in ciidamada danab loo adeegsado qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho sargaal magaciisa la qariyay ayaa dhawaanta waxa uu u sheegay wargeyska Washington Post in Mareykanka ay ku gacan saydeen codsi uga yimid Farmaajo kaasi oo uu ku dalbaday in magaalada Muqdisho lagu soo daabulo ciidamada danab waxaana midaasi bedelkeeda caasimada Muqdisho la keenay ciidamada gorgor iyo waliba kuwa haram cad oo la sheegay in dad shacab oo barnaamijaya iyo sidoo kale midowga musharaxiinta ay rasaas nool u adeegsadeen ma cadda hadii madaxweyne Farmaajo uu yeeli doono codsiga ka imaaday dhinaca Turkiga waxaana xusid mudan in dawladda Turkiga ay dhawaanahan isku dhawaayeen madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyada oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo waliba dadka qaar ee dawladda Turkiga ku eedeynayaan in ay ka tagtay dhexdhexaadnimadii ay ku jeclaayeen shacabka Soomaaliyeed
imaatinka ciidamadani ayaa waxa ay ku soo aadeen xilli mucaaradka ay dood badan ka qabaan hab adeegsiga ciidamada qaranka waxa ayna madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhammaaday ay ku eedeeyeen in uu si baalmarsan sharciga u isticmaalay ciidanka iyada oo laga tusaale qaadanayo wixii dhacay 19 February ciidanka gorgor iyo kuwa haramcad waxaa tababarkooda iyo xoojintooda qaabilsan dowladda dalka Turkiga oo ku tababara gudaha dalkaasi iyo waliba banaankaba si kastaba tee walaac badan ayaa laga qabaa ciidamada ay dowladda Turkiga tababartay maadaama oo aan loo adeegsanin dana qaran ee loo adeegsado dana shakhsiyadeed sida ay sheegayaan mucaaradka iyo dad badan oo Soomaaliyeed iyada oo sida la xusuusto ciidamo tiro badan oo ah kuwa haramcad iyo gorgor ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho isla markaasina ah kuwa hor istaagay banaanbaxyo isla markaasina dagaal la galay midowga musharaxiinta ciidamada ilaalada u ah ciidamadani ayaa waxa ay mas'uul ka yihiin nabadgelyada waana in ay ka dhaxbaxaan siyaasadda in ay ku taliyaan dadka ka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhamaaday kaasi oo hadda ay u dhamaatay muddo bil ah kadib markii waqtigii sharciga ahaa uu ka dhamaaday dhaga galana madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu soo saaray bayaan degdeg ah oo uu uga hadlayo xaaladda adag ee ka jirta gobolka Gedo iyo sidoo kale midani ka dhalatay cudurka safmarka ee COVID-19 Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii hore waxa uu ugu baaqay ganacsatada dawladda iyo hay'adaha samafalka in ay gurmad bini'aadminimo la garab istaagaan shacabka ku dhibaataysan gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu soo jeediyay in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka cudurka coronavirus oo haatan farabaan ku haya Soomaaliya Shariifka ayaa sidoo kale dawladda waxa uu ka dalbaday inay fududeyso sidii loo heli lahaa wax kasta oo looga hortagi karo cudurka COVID-19 warka uu soo saaray madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa u qoraa sida tan ugu horeyn waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan xukuumadda xilgaarsiinta saaxiibada Soomaaliya ee caalamka iyo hay'adaha samafalka inay kaalmo degdeg ah ay la gaaraan masiibada bini'aadminimo ee ka jirta gobolka Gedo ee Jubbaland iyo guud ahaanba gobolada kale ee dalka ee laga sheegayo masiibooyinka dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid yihiin biyo la'aan abaaro iyo caabuqa COVID-19 ayaa dhibaato xooggan ku haya bulshadeena Soomaaliyeed sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay qayb ka noqdaan gurmadka kaalin muuqatana ay ku yeeshaan keenista dalka ee talaalka COVID-19 maadaama oo awoodda dawladdu ay aad u kooban tahay ugu dambeyn Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ugu baaqay wasaaradaha ay khusaysa ee xukuumadda inay ganacsatada ay u fududeeyaan sidii ay dalka u keeni lahaayeen wax kasta oo looga hortagi karo cudurka COVID-19 sida talaalka iyo adeegyada kale ee daawo ee loona kaashan karo la dagaalanka xanuunka coronavirus